ninkan waxa uu arkay naagtiisa oo hoteelka kula sheekaysanaysa nin kale, laakiin markii uu si xamaasad leh ugu tagay xaaskiisa, falcelinteedu waxay noqotay mid la yaab leh. ninkaagii waa kan, ayuu yiri ninkii. Lise ayuu yiri, iga raali ahow, ma ku garanayaa, ayay tiri. xaaskii halkii ay ceeb dareemi lahayd waxay u yeertay ninkii ay la sheekaysanaysay. Martin ayay tiri, kani waa ninkayga, ayay tiri iyadoo isbaraysa ninkii kale. ma adigaa ah Dr. Martin Harris, ayaa la weydiiyey. markii iigu dambaysay ee aan is eego, haa aniga ayuu ahaa, ayuu yiri ninkii kale. Martin marnaba kuma fikirin in xaaskiisu ay sidaas u inkiri doonto. keliya ma aysan iska dhigin qof aan aqoon isaga, laakiin waxay sidoo kale keentay nin cusub oo magaciisa wata. kumaa tahay, ayuu weydiiyey. adiguna kumaa tahay, ayuu ninkii kale ku jawaabay. anigu waxaan ahay ninkeeda, ayuu yiri Martin. hagaag, fadlan ma naga fogeyn kartaa, ayuu yiri ninkii kale. Martin wuu xanaaqay, waxa uu si istaba joog ah u weydiiyey xaaskiisa sababta ay sidaan ula dhaqmayso, laakiin Liz way aamustay iyadoo uu ogolaatay in ilaaladu ay ula dhaqmaan sidii dhibaato wade oo ay ka saaraan howlka. markii la geeyey qolka ilaalada, wuxuu isku dayay inuu kaamirooyinka hoteelka uu isticmaalo si uu u caddeeyo inuu isagu yahay Martinka dhabta ah, laakiin muuqaalka waxaa ka muuqatay oo keliya xaaskiisa. Martin wuxuu xusuustay in markii xaaskiisu ay isdiiwaan gelinaysay, uu isagu dibadda alaabta ka soo dejinayay, uuna ogaaday in mid ka mid ah boorsooyinkiisa ay ka maqan tahay. waxa uu u maleeyey inay garoonka diyaaradaha kaga soo tagtay, maadaama aqoonsigiisa iyo dukumentiyo kale oo muhiim ah ay ku jireen. si degdeg ah ayuu taksi u raacay si uu garoonka ugu laabto. intii uu jidka ku jiray, wuxuu isku dayay inuu xaaskiisa soo waco, laakiin taleefankiisu ma lahayn shabakad. isla markaas shil ayaa dhacay, biyo qabow ayaa si degdeg ah u buuxiyey gaariga. darawaladii oo degganayd ayaa si degdeg ah daaqada u jebisay si ay u baxsato, laakiin Martin wuu miyir daboolmay. markii uu gaarigu sii quusayay, darawaladii ayaa si geesinimo leh u jebisay daaqada dambe, waxa ayna ku guulaysatay inay Martin ka soo saarto biyaha. laakiin markii ay kooxaha gurmadka yimaadeen, darawaladii geesiyada ahayd ayaa si aamusnaan ah dadka dhex gashay oo meesha ka tagtay. Martin ma uusan ogeyn wakhtigaas in shilkaas uu horseedi doono dhibaato ka weyn. markii uu soo toosay, 4 maalmood ayaa ka soo wareegtay. dhaawac madaxa ka gaaray iyo biyaha uu liqay awgood, xusuustiisu way kala daadsanay. waxa uu keliya xusuustay inuu ahaa aqoon-yahan cilmiga noolaha ah oo uu Berlin ula yimid xaaskiisa Liz. intaas wixii ka baxsan, maskaxdiisu way marnayd, xitaa lambarka taleefanka xaaskiisa ma uusan xusuusan karin. alaabtiisa keliya ee u hartay waxay ahayd saacad iyo buug yar oo dhirta ku saabsan, mana jirin wax aqoonsi ah. markii uu TV-ga ka arkay war ku saabsan shirweynaha caalamiga ah ee teknolojiyadda noolaha, ayuu xusuustay in isaga iyo xaaskiisu ay Berlin u yimaadeen inay ka qayb galaan shirkaas. isagoon dhegaysan talada dhakhtarka, ayuu si rajo leh u aaday hoteelkii Adlon, laakiin wuxuu la kulmay xaalad aan la filayn. xaaskiisa Liz oo uu jeclaa ayaa ula dhaqantay si qabow oo ka fogaysay noloshiisa. isagu ma ahan Martin Harris, aniga ayaa ah Dr. Martin Harris, ayuu ku qayliyey. ninka kore waa iska yeelyeel maadaama uu ahaa aqoon-yahan caan ah. aqoonsiga Martin ma ahayn mid adag in la xaqiijiyo, laakiin macluumaadka laga helay internetka waxay muujinayeen sawirka ninkii kale. Martin wuu naxay, mana awoodin inuu istifaaco. wuxuu gartay in xaaladdu ay qasan tahay. si aan booliiska loogu dhiibin, wuxuu iska dhigay qof xusuustiisu ay dhiban tahay. waxa uu si baryo ah u sharaxay inuu shil galay oo xusuustiisu ay wareersan tahay. markii la arkay inuu daacad yahay oo uu haysto kaarka dhakhtarkii daweeyey, maamulihii hoteelka ayaa go'aansaday inuusan sii dabagelin oo uu iska daayo. intaas kadib wuxuu helay hotel yar oo u dhow. inkasta oo uu diyaar u ahaa inuu bixiyo lacag dheeraad ah, haddana waa laga saaray maadaama uusan haysan baasaboor. isagoo meel cidla ah taagan, wuxuu mar kale wacay saaxiibkiis Rodney, laakiin fariin cod ah uun buu helay. isla markaas wuxuu arkay gaari madow oo uu garanayo, kaas oo ahaa gaarigii ku sigtay inuu jiirsiiyo. miyuu qof daba socdaa, ayuu isweydiiyey. si uu u xaqiijiyo, wuxuu galay saldhig tareen oo dhulka hoostiisa ah. sidii la filayay, waxaa soo raacay nin muraayada wata. waxyar kadib, nin sita boorso ayaa si degdeg ah ugu soo socday. markii uu xaqiijiyey in la daba socdo, Martin wuxuu u orday dhankii tareenka, wuxuuna ku guulaystay inuu fuulo tareenka isla markii uu albaabku xirmayay, isagoo ka fakaday ninkii daba socday. wuu neefsaday, laakiin weli wuxuu dareemayay cabsi. wuxuu soo saaray buugiisii yar ee dhirta, isagoo ku tiirsan xusuustiisa yar, wuxuu qoray jadwalkiisii maalmahaas. markii uu tareenka ka degay, wuxuu helay cinwaanka shaybaarka Dr. Bresler, wuuna ka helay buugga taleefanka. markii uu gaaray shirkaddii taksiyada, wuxuu xusuustay lambarka taleefanka ee uu ku arkay gaariga shilka galay. wuxuu u tegay si uu macluumaad uga helo darawalkii, laakiin waxaa la kulmay cayda maamulaha. waxaa soo baxday in darawalkii ahaa muhaajir sharci darro ah oo ka yimid bariga Yurub. maadaama uusan haysan liisan caymiska, ma uusan bixin khasaarihii gaaray shirkadda. hadda iyaguna waxay raadinayaan gabadhaas. waxaan filayaa maamuluhu ma oga meesha ay ku sugan tahay, ayuu yiri Martin. cidna ma oga meesha ay joogto. inkasta oo uu ninkii kale afka ka diiday, Martin wuxuu dareemay inuu og yahay meesha ay ku sugan tahay. wuxuu u sheegay inuu keliya doonayo inuu ugu mahadceliyo badbaadinta naftiisa. markii uu Martin gaaray makhaayadii ay Anna ka shaqaynaysay, Anna oo ka baqaysa aqoonsigeeda muhaajirnimo, ma aysan doonayn inay wax lug ah ku yeelato. sida iska cad, raadkii halkaas wuu ku dhammaaday. markaa Martin wuxuu toos u aaday shaybaarka Dr. Bresler. inkasta oo aysan hore isku arag, way is yaqaaneen. taasina waxay ku filnayd in Dr. Bresler uu xaqiijiyo aqoonsigiisa, laakiin waxaa lala yaabay, ninkii kale isna halkaas ayuu joogay. shaybaarku waa meel mamnuuc ah. kuma tahay, ayuu yiri Dr. Bresler. ninkani ma ahan Harris, aniga ayaa ah, ayuu ku qayliyey Martin. maxaa halkan ka socda, ayuu yiri Dr. Bresler. laba Martin Harris ayaa jira. si uu aqoonsigiisa u caddeeyo, Martin wuxuu sheegay faahfaahin ay isaga iyo Dr. Bresler keliya ogaayeen. Dr. Bresler wuu rumaystay, laakiin ninkii kale ayaa isna sheegay macluumaad la mid ah. waxaan ka hadalnay sida ay u dhiiran yihiin xaasaskeenu, ayuu yiri. aniguna waxaan kuu sheegay bishayadii malabka ee Paris, ayuu yiri ninkii kale. xaaskayga iyo aniga, ayuu yiri Martin, waxaan rabnay inaan booqano dhammaan madxafyada, laakiin anigu waxaan rabay inaan arko jaamacadda, ayuu yiri ninkii kale. laakiin iyadu waxay ku adkaysatay madxafyada. halkaas ayaan markii ugu horeysay ku arkay sawirka Vitruvian Man. intii uu Dr. Bresler wareersanaa, booliiskii ayaa yimid. ninkii kale wuxuu soo saaray boorsadiisa oo ay ku jireen aqoonsigiisa Maraykanka iyo sawir isaga iyo xaaskiisa ah. markii uu arkay sawirkaas, Martin maskaxdiisu way wareertay. wuxuu bilaabay inuu ka shakiyo naftiisa. miyay suurtagal tahay in shilka awgiis uu yeeshay xusuus aan tiisa ahayn? isagoo fikiraya, Martin wuu miyir beelay. markii uu soo toosay, wuxuu ku soo noqday isbitaalkii si ay u caawiso. kalkaalisadii ayaa siisay cinwaanka baaraha gaarka ah. isla markaas dhakhtar
dhakhtarkii wuxuu u diyaariyey baaritaan kale laakiin markii baaritaanku dhammaanayay Martin wuxuu arkay in ninkii muraayadaha lahaa uu yahay kan baaritaanka samaynaya salaan Martin ayuu yiri intaas kadib ninkii wuxuu Martin saaray sariirta maadaama la siiyey daawo suuxin ah Martin wuu istifaari waayay wuxuu daawanayay ninkii oo sun ku duraya isla markaas kalkaalisadii ayaa soo gashay laakiin ninkii ayaa si degdeg ah qoorta uga jabiyey markii uu arkay meydka kalkaalisada Martin wuxuu xaqiijiyey in xusuustiisu ay sax tahay markii uu ninkii baxay wuxuu ka qaatay maqaskii kalkaalisada wuxuuna ka faa'iideystay fursad uu ku gooyay xarigii wuuna baxsaday markii uu ka baxay qolkii wuxuu arkay bukaan socod badan oo degdeg ah isagoo ka faa'iideysanaya jahwareerka wuxuu raacay ambalaas wuuna ka baxsaday isbitaalka inkasta oo uu badbaaday Martin ma dareemayn nabadgelyo wuxuu dareemayay in qof kasta oo jidka maraya uu yahay dilaa isagoo quus ah wuxuu wacay taleefanka qolka xaaskiisa laakiin ninkii kale ayaa ka qabtay isagoo aan haysan meel uu aado wuxuu aaday cinwaankii baaraha Ernst Jirgen wuxuu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonkii hore ee bariga Jarmalka Stasi markii uu maqlay sheekada Martin xiisihiisii hore ee basaasnimo ayaa soo noolaaday inkasta oo Martin uu haystay lacag yar Jirgen wuxuu go'aansaday inuu caawiyo markii uu eegay alaabta Martin wuxuu isla markiiba helay furaha sheekada Stasi dhexdeeda waxaan lahayn mabda asaasi ah weydii su'aalo kugu filan ninka beenta sheegaya aakhirkana wuu bedeli doonaa sheekadiisa laakiin ninka runta sheegaya ma bedeli karo sheekadiisa ma i rumaysanaysaa ayuu yiri Martin waxaan rumaysanahay inaad run sheegayso ayuu yiri Jirgen wuxuu u sheegay Martin inuu isku dayi doono inuu la xiriiro saaxiibkiis Rodney wuxuuna kula taliyay inuu mar kale la hadlo Anna maadaama ay goobjoog ahayd horay ayaan uu isku dayay ayuu yiri Martin waxaa laga yaabaa inaad seegtay faahfaahin muhiim ah taasi waa waxa aan ku caan ahaa faahfaahinta marka Martin wuxuu mar kale helay Anna inkasta oo aysan doonayn dhibaato haddana markii ay aragtay saacadda Martin oo qiimaheedu ahaa 5 eber oo euro Anna waxay go'aansatay inay la kulanto Jirgen maalinta xigta dhanka kale Jirgen wuxuu internetka ka raadiyey macluumaadka shirka wuxuuna helay xog ku saabsan Bresle wuxuu sidoo kale ogaaday in Amiir Shada oo maalqabeen ah uu ahaa kafaala qaadaha shirka iyo in marar badan la isku dayay in la dilo tani waxay keentay in Jirgen uu sameeyo malaawaal dhanka kale Martin oo aan haysan wax aqoonsi ah wuxuu habeenkii ku hoyday guriga Anna isagoo daawanaya sawiradeeda Martin wuu yara degay laakiin Anna ayaa si xanaaq leh uga qaadatay buugga sawirka dhabarka buugga waxaa ku qornaa diiwaanka lacagteeda haddii ay ururiso 4 eber oo euro waxay iibsan kartaa dokumentiyo ay ku baxsan karto saacadda Martin ayaa u ahayd fursad isla markaas albaabka ayaa la garaacay nasiib wanaag wuxuu ahaa saaxiibkeed oo u keenay furihii taksiga laakiin markii uu baxay albaabka ayaa mar kale la garaacay markan ma ahayn saaxiibkeed laakiin waxay ahaayeen ninkii muraayadaha lahaa iyo dilaa kale isla markiiba Anna way miyir beeshay dilaagii kale wuxuu aaday suuliga oo uu Martin ku jiray laakiin suuligu uu madnaa wuxuu arkay daaqada oo furan wuxuuna u maleeyay in Martin uu baxsaday laakiin Martin wuxuu ku dhuumanayay meel u dhow ninkii kale ayaa gartay in Martin weli halkaas joogo wuxuuna Anna u isticmaalay damaanad ahaan laakiin Martin ayaa si lama filaan ah u weeraray wuuna ka riday hubkii laakiin ninku uu ka xoog badnaa xilligii ugu dambeeyay Anna ayaa soo faragelisay oo ninkii miyir beeshay labadooduba si degdeg ah ayay uga baxsadeen hadda waxay ku jireen hal doon maalintii xigtay waxay la kulmeen Jirgen odaygii wuxuu u sheegay inuu malaynayo ujeedadoodu maadaama amiirku uu ku lug leeyahay arrimo dano gaar ah leh Martin aqoonsigiisa ayaa ah kan kaliya ee u suurtagelin kara inay u dhowaadaan amiirka baaraha wuxuu aaminsan yahay inay qorsheynayaan inay dilaan amiirka Martin ma uusan diidin mala awaalka odayga laakiin wuxuu sheegay inuusan haysan cadeyn wuxuu aaminsan yahay inuu u baahan yahay inuu helo xaaskiisa si uu ogaado runta labadoodu way kala qaybsameen dhanka kale Jirgen ayaa helay wicitaan dasoon qofka soo wacay wuxuu sheegay inuu yahay saaxiibkii hore ee Martin oo uu doonayo inuu la kulmo laakiin Jirgen wuxuu dareemay inay wax qaldan yihiin ninkii wuu yimid wuxuu la yaabay sababta uu Jirgen u aqbalay kiiskan waxaa jira waxyaabo yar oo adduunka ka haray oo xiiso u leh basaastuq ah sida aniga oo kale ayuu yiri Jirgen waxaa jiray urur dilaayaal ah oo la oran jiray qaybta halshan ah waxay u shaqayn jireen qof kasta oo lacag siiya waxay ahaayeen kuwa ugu fiican qorsheynta iyo fulinta weligoodna ma fashilmin waxaa la yiraahdaa weli way jiraan ninkii ma uusan isqarin laakiin markii uu weydiistay liiska dadka uu Martin la kulmay Jirgen jirkiisu wuu daciifay maadaama uu ogaa inuusan ka baxsan karin wuxuu go'aansaday inuu sun isku dilo isla markaas Martin wuxuu gaaray garoonka diyaaradaha inkasta oo uusan haysan aqoonsi wuxuu xusuustay lambarka sirta ah ee boorsada ugu dambayna wuu helay boorsadiisii markuu arkay sawirka xaaskiisa Anna way fahantay inay tahay waqtigii ay bixi lahayd waxay u celisay saacadii kadibna way iska tagtay laakiin markii uu sugayay xaaskiisa wuxuu la kulmay saaxiibkiisii hore waan ka xumahay inaan kugu soo daray arrintan ayuu yiri Martin hawelwelin hal 5 sano ayaan saaxiibo ahayn ayuu yiri saaxiibkiis Martin marnaba kuma fikirin in saaxiibkiisii hore uu ahaa dilaa laakiin markii ay isku dayeen inay isaga dilaan Anna ayaa si lama filaan ah u soo muuqatay oo ninkii jiirtay wayna baxsadeen Martin wuxuu helay aqoonsigiisii dhabta ahaa wax walba waxay ahaayeen been uu isagu abuuray wuxuu sidoo kale soo ceshaday dhammaan xusuustiisa 3 bilood ka hor waxay diyaariyeen wax walba oo ay ku jiraan bamkii ay ku rakibeen hoteelka iyaga ayuu yiri Martin anaga ayaa ah dilaayaasha Amiir Shada caawa waa la dili doonaa aniga ayaa bamka halkaas dhigay maxaad hadda samaynaysaa Martin ayay weydiisay Anna dhammaan qorshayaashii si habsami leh ayay u socdeen Amiir Shada wuxuu gaaray hoteelka xaaskii beenta ahayd waxay kicisay bamka waxaa laga yaabaa in xusuustaas beenta ah ay toosisay damiirka Martin wuxuu go'aansaday inuu joojiyo musiibada laakiin isla markii ay hoteelka galeen ilaaladii ayaa aragtay maamulihii oo ka walwalsanaa inuu mar kale dhibaato abuuro ayuu diiday inuu rumaysto Martin markii uu sheegay inay bam jirto markii uu arkay muuqaalka maamulihii ugu dambayn wuu rumaystay intii lagu jiray digniinta dhammaan martidii way baxeen xaaskii beenta ahayd waxay garatay inuu qorshuhu fashilmay waxayna isku dayday inay bamka ka saarto si ay ninkeeda u siiso waqti dheeraad ah laakiin dhibaato ayaa dhacday bamkii ayaa qarxay Martin wuxuu ka soo baxay burburka markan isagoo soo ceshaday xusuustiisa wuxuu ahaa sida geesi dagaal wuxuu si fudud u dilay ninkii kale ugu dambayn isagoo kaashanaya Anna wuxuu si guul leh uga baxsaday hoteelka Martin wuxuu Anna u sameeyay aqoonsi cusub waxayna bilaabeen nolol cusub oo ay ku haminayeen